magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe waxa ku yilay warshad sonkorta kabaha saabuunta iyo agab kala soo saarta wax soo saarka warshadaas lagu magacaabay Snai Piazza ayaa la sheegay inuu qayb ahaan dabooli jiray baahida Soomaalida ee dhinaca sonkorta warshadu ay si daran u saameeyeen dagaaladii sokeeye ayaa hadda waxa ka nool oo kaliya biradha dheer oo daxalaystay qayb ka midina waxay hooy u tahay dad barakacayaal wariyeen Xuseen Xasan Dhaqane oo deegaanka ku sugan ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Jowhar warshada sonkorta Snai Jowhar waxa lagu tilmaamaa inay ahayd warshadii ugu weyneed bariga Afrika wax soo saarkeedii ugu dambeeyay wax yar ka hor burburkii dawladda Soomaaliya waxa uu gaaray halkii maalin ilaa 2500 kintaal oo sonkorta qasabka laga sameeyo shaqaalaha gudaha warshada ka howlgalaya waxa lagu qiyaasaa ilaa 500 qof oo Soomaali u badan waxa sidoo kale shaqaalaha ku jiray xirfadlayaal ajaanib ah Isxaaq Faarax Wehliye Kinko waa maray ku xigeenkii waaxda warshada waxa uu sharaxayaa sida ay ahayd warshada Snai xilligii dawladii kacaanka warshada sonkorta Snai Jowhar water la garnaa كل سجال بخل يلحق يسدحري يلا دسي warshadaana warshada ka horeysay dadkii ku noolaa magaalada Jowhar xilligii ay shaqeyn jirtay warshada marna kuma ay fikireen in ay la kulmayaan gaajo ama shaqo la'aan inkastoo dhismihii warshada biradda xaleystay oo kaliya ay goobta ka muuqdaan haddana shaqaalihii warshada inta xilliga nool waxa ay diyaar u yihiin in ay helaan xuquuqdii ka maqneyd shaqaale aan ma jirto abaar way kusto maalidatii hada oo socoto abaar waa kusto ma jirin baaya dhicayso ma qaban buuan يا وقتيغاس بايا دحيسو ما جيرن يا بس القاده ويرد لك بس wax goynaysi maareey ku xigeenkii waaxda warshada sonkorta Jowhar Isxaaq Kinko ayaan weydiiyay waxa uu dareemayo marka uu arko xaruntii warshada oo biro kaliya ay ka taagan yihiin qayb kamid ahna ay barakacayaal ku nool yihiin waxa weynaa dareemo markii hore lagu ku iri bishi kab service industrial ah بس أجاسمها كحوجينك أو واحدة ورشدان هاي بجيب إيري أو ورشدي ببرتي نموذج أروح هذا بجيزه بعده هوسكيسا وقعديسا أو صاندها وقركر ثاي سي عن هاي ورشدان سيد إهد سي هاي يسيلو نولاي كوازي أوتو نو بنبينا كسوكوري ورشدان نموذج ما كتبنا خنا markii warshadii wadankaadii ku taal oo guriyaadii ku taal oo saana noqotay oo ko imbishiil waxa la ka xayawaanka oo xayawaana oo birki waxadiisa iskiijo waa qaatoya birkan waa qaatoya laakiin imbiyaanta kala hadii warshad kala ay jirto yani qulubtii amaamadii qaata yani aad loo farxanaada maxaa u farxaa hadan warshadii ka dhigtay Soomaaliya ka dhigtay Xuseen Xasan Dhaqane qubanaha VOA Jowhar